nin ka mid ah ergadii waxa ka soo xushay baarlamaanka federaalka ayaa waxaa lagu dilay magaalada muqdisho. Ibraahim Cariif oo ah oday si weyn looga yaqaano degmada Yaaqshiid gaar ahaan xaafadda Jungle waxaa toogtay rag basoolada ku hubeysan kuwaas oo goobta markiiba ka baxsaday. ninkan ayaa waxa uu wax ka soo xulay xubnaha baarlamaanka federaalka ee ka yimid dhanka Hirshabeelle. waxaa dilkiisu uu ku soo aadayaa iyada oo isla magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Dharkeenli lagu dilay nin asaguna ka mid ah ergadii soo xushay baarlamaanka federaalka gaar ahaan kuwa ka yimid dhanka Koonfur Galbeed. ninkaas oo dilkiisu shalay uu dhacay magaalada Muqdisho maalintii shalay waxaa ka dhacay dilal kala duwan. waxaa xusad mudan in askari booliis lagu toogtay suuqa Bakaaraha mid kalena halkaa lagu dhaawacay. sidoo kale sarkaal ka tirsanaa nabad sugidda ama BBSta dowladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay xaafadda Barwaaqo oo ka tirsan degmada Daynile ee magaalada Muqdisho. qarax ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdishona waxaa ku dhintay askar ka tirsanaa dowladda federaalka iyadoo kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. intii bishan lagu guda jiray waxaa dhacay qaraxyo ay ku leedeen xubno ka tirsan dowladda federaalka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo xubno kalena si toos ah loo dilay.